بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد كلمتنا waxay ku saabsan tahay waxa loo yaqaan البيع الشبكي ama network marketing amaba البيع الهرمي ama pyramid marketing amaba البيع العلائقي relational marketing ama loo yaqaan البيع بالالتقاط magaca doonta adiga sii. inta aynan mas'alada fiqiga u daadegin baa waxaan rabaa dhowr arrimood inaan ka hormariyo. waa koow, diinteenna waxay ku salaysan tahay wax loo yaqaan alwarac. qofka mu'minka inuu xalaal miirad uu noqdo, waxa calooshiisa gelayo uu u warhayo, jeebkiisii accountkiisa waxa gelayo uu ka warhayo, aanu arrinkuna aanu noqonin uun keliya isii aan cune ah, iigu soo rid aan xisaabtayda ku biirsada ah. innaga waxay nahayaa dastuur islaami ah. dastuurka islaamiga ah waa waxa keliya ina kala saari kara, kalana caddayn kara xaq iyo baatil. wadaadka meesha taagan, imidka tv-ga kuu fadhiya, imidka cajaladiisa ku soo gaaraysa, masaladuu sheegaya khalad buu u sheegi karaa, sax buu u sheegi karaa, big deal maaha. laakiin waasica diiniga ah ee adiga qalbigaaga ku jira ayaa wax kastaba xukumaya. waa haddii lagu sheegay aayaadka ilaahay, aayaadkuna ay noqdaan wamaa tugni alaayaatu wannudur can qowmin laa yu'minuun. nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi addanbu maa xaaka fi nnafs. xadiidkan keliya isagaa fadba iigu filan. dembi waa wixii nafsadaada dhiba waad ka seexan weyd. habeen iyo maalin su-aal baa la taagantay, waxaana ma xalaalba ma xaaraanba. wataradada fi sadr, laabtaadana saa ugu laablaabtay, isla markaana aadan jeclayn dadka inay kugu ogaadaan, maxaa yeele waa dembi. nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahy hadday dadkao dhan kuu fatwoodaan inuu dembi yahay ogow, maxaa yeele adaaba ku degila. laba, wuxuu nabiga sal alla alay wasalam xadiidka nucmaan bin bashiir uu leeyahy xalaashu way caddahay, xaaraantuna way caddahay. waxaa dhex yaal umuur iyadu isku dhafan oo meel loo dhigayo ayan jirin. laakiin nabiga sal alla alay wasalam wuxuu yidhi kii xalaasha u galana waan garanay, oo xataa kelimat alxalaal markaan leeyahay afkayga kala faydmaya, xalaal afka kala furmaya, xaaraam afka isxiraya, which means in xalaashu wax alla wixii xalaala carab calooshaada ku rido oo jeebkaaga ku rido, markay xaaraam ay tahna afka ka xiro. markaasuu nabiga sal alla alay wasalam waxyaabahan isku dhafan oo meel loo dhiga aanan lahayn, laga masaladu inay noqoto masalo culama isku jiijiiday, laga masaladu inay noqoto mas'ale meel loo saara aanay jirin. laakiin nabiga sal alla alay wasalam wuxuu ka dhigan yahay nin isagu qowsaar ah oo xoolihiisa ku raacanaya xagga iyo moorada, da wuxuu halis u yahay neefkii inuu intuu foofoo baxsado moorada uu kaa galo, mana ogid meeshu marka aadi doono. haddaba nabiga sal alla alay wasalam markuu intaa wuxuu daba dhigay wuxuu yidhi waxaa jira nin booran oo basaasan oo safar dheer galay oo isagoo gaajaysan oo dharkiisu raf u yahay ayuu gacmaha taaganaya, wuxuu yaa rab yaa rab yaa rab. laakiin ninka ducadiisee loo dhegaysanaya? waxa uu xiray waa xaaraam, waxa uu cunay waa xaaraam, meesha uu degan yahay waa xaaraam, safartaa uu ku jiro ama safarkaa uu ku jiro wuxuu maanta kusoo qaday ku qaracda waa xaaraam. markaasuu leeyahy nabiga sal lla ly slam annaa yustajaabu lahu, maxaa waa nin made of haram, isagoo dhanba xaaraam ka samaysa. haddaba xadiidkan wuxuu noo muujiyey mas'alada ah xalaasha iyo xaaraamta, si kastoo lagugu fatwoodo inay muhiim ay tahay diinkaagaa ku jira. shilinkan adaa cunaya, owlaad baad ku korinaysaa, mustaqbal buu ku noqonaya. arrinka kale wuxuu yahay nabiga sal lla alay slam wuxuu yidhi war wixii ku shaki geliya ka tago waxaan ku shaki gelin aad. bal waxay samayn jireen salaf hadihi lumma, waxaana dood xitaa ka taagnayn bay ka fogaan jireen iyagoo ka baqaya inay ku dhacaan masale culamada isku haysato. wuxuu leeyahay abu dar alkhafaari, alla ka cabsiga buuxee dhammaystiran waa qofka inuu ka tago waxyaabaha qaarkood ee xalaasha ah isagoo ka baqaya xalaashaasu inay mamar qaarkii xaaraan ku rido. xalaal wey waa bannaan tahay may waxba ma diidin, yaa diidada marka lagu hayo aakhir meel kale kaa tuuraysaa buu yidhi.
الفضيل بن عياضنا هذا ليس حكمده مركو وحيري وددكم waxay ka hadleen xaraal miirki inuu adag yahaa wallahi wax ka sahadii lay door galiyo laba shay midka ugu adag baan qaadanay maxaa yeelay waxaan raadinaya wax sax oo markii Abu Sulaiman ama Sulaiman al-Mu'addib nimba u yimid al-Amri markaasuu niyo iwaani ila hadal markaasuu niyo waxaan ku sheegaya quruur xir intuu soo qaata biil quruur ma arkaysaa bil inta uu leeyahay wasni oo wuxuu yiri ka in la eg oo waraca xalaal miirada hadduu qalbigaaga galo intaasaa salaad iyo wax walba kaaga filan buu yiri وبيديس وموجين وحنا ضمبة وحي موجين مسألة الورع حديث بخاري أبو بكر ويل بقى وشقين جرين ويل خراج أبو بكر ولي وحواه كين جرين مال ما كم إذا راشين صهر دقي أبو بكر مركي وعني كذب بني كوي حيري مكون شيء واحد عنتي هذا كهر بنقلا وحوف عليه بيري كهانة ما نقوني وحي برجال ليسي أما بمعنى حوله ذي بهذا السيان كدي من الراشين باكو كان أبو بكر مركو مقلد ومركي اسمهم قاعي اسمه تجيء اسكسو صار الموجنس بمعنى على شيء ذو حنك إلى علينا يا وحرام إن كلام نفس الشيء ورا حديث إنه موجين يا أوكي نبانين دار كجت مركو دقائق كدي بوحو دار تحو كده حلي حرمي يرى ذهب نيكي وانتو تلفون ودروي حيل يعني الله كوضع انتو الله لو حيل وردقيس جرده ماشي كجستاي أنو كاما كذا أنو حكا يسد كليه قولك كان مركز سيرما إنه قولك واحد سرعة سبعة ضوضة له أرجعني والبحر دي محصور عن كدي بيبحر كنت معنن مركز سيرحي يروح الودي لبدي الإمام الذي بيبقى هاويل بقى جوجا مكلا وحي يروح جوجا تجار بقى جوجا حتى اسكون مهرية بيري وحلا روحي إذا ماشى جرده ذهب كجيرانه يجابيل وقاعدين بمعنى ذاتك هرني والبحر إسك إلى علينا يا واحد جيب كيس الصاقة واحد أيهين أيوة يتحذر بيه وانا درسي قفك الشيء اللي كجبه بدين روناتي انت امرك لغا سو غد بكدب او نصوصتا waxaan u soo daadagaynaa mawduuca la xiriira waxa loo yaqaan al-bay' shabaki magacyadu aad bay u bateen mushkiladana haystana waxay tahay wadaadka la weydiinayo badan masalada iyadoo aanu ogeyn terminology-ga meesha ay tahay baxfin aanu samayn buu markiiba la soo boodaya maxaa diiday البيع الشبكي البيع الهرمي هرت لبا شيء البيع الهرمي ومن سوق كسو هريا اما بيراميد ماركتينج بيراميد ماركتينج سوق اسغا كسو هري قف كلا لها ليه اما شركات با ميشن تال منصوردينيا شركات داس waxay ku leedahay horta si aad madlam u noqotid ama member u noqotid ama cudwi ama xubin lacag la bax lacagtii uu qofka la baxaya pyramidka marka waagi hore waxba ma yingadi jirin wax products meesha ma joogin ma jirin lacagaha u bal kala wareejin jiray lacag baa bixinaysa lacag kala helaysa shabakiga hadda soo baxay networku la xiriira net marketingku waa ka duwan product baa meesha mobile baa meesha computer baa bixinaysa energy baa meesha waxun baa meesha oo dadka laga bixinayo لكن waxaa khasaba in lacag bixisid adigu magac doonto ku sheeg kadib muddo marka la joogo qof baad ku qancinaysaa inuu isna uu ka noqdo member ka noqdo xubin ka noqdo markuu xubin uu ka noqdo qofka qof buu qancinaya qof baa qof kale ku qancinaya وهكذا دواليق وماشي دهان multi level marketing اما لو يقان التسويق المتعدد التراكم اما المتعدد المستويات وسيس عنيه كلما قف وسو زياده كوميشن باجله ama adigu bonus dheh ama commission dheh waxba lagu qaadanayo waa camulada meesha ku magacaabaan haddaba waagii hore qolada pyramidka iyagu mayan lahaan jirin systemka inuu qofka xoolo ama uu yiraahdo products biiciya muntajaat laakiin waxay leeyihiin lacag bixi lacag baad helaysaa markii khilaaf badan uu ka yimid qawaaniinta dawliga ay mamnuuceen bay waxay u gudbeen noocan ashabakiga oo la leeyahay qofka horta waa in loo muujiyo wax la gadayo la beecinayo horta system saasu ku soo gal labo shirkadka shabakiga ayaa ka cumri dheer run ahaantii shirkad hore u jiray bay ahaayeen pyramidka mar dambe soo galeen iyagoo hore u jira laakiin khilaafaadkooda uu badnaa oo systemkii qimaarka u isticmaali jiray haddana suuqa marka la ka baxay waxay kala duwan yihiin pyramidka lacagta lagu weydiinayo ee la leeyahay xubin kaga noqay aad bay u sareysaa مثلا hadda wadamada carabta oo kale 33,000 oo dirham baad ku galaysaa
في حين شبكة يكون إليه بقول درهم أو ما له لجوج شن بقول $7 أو ماشي لجوج أفر كوني وحل جرا كرون وحيد طبعا نقط هالضبا مركي يجوه الرئيسي وبيع شبكة أما بيراميد وصبح واحد تكون سجال بقول يأفرتنكي in the United States of America أمريكا صبحت مركي يجوه الرئيسي وصاء كوماشة ساهل مركي وحمر حلا يصدري وزارة التجارة أمريكا يوحى إسقاط شركات كان محكمة اللي سولتجي محكمة مرنا بحق ليس شركة دي مرنا بحق ليس وزارة دي آخر كان مجلس العلماء أمريكا وحي صار بيان إليه وحاسوا حرام دجال كان مركو بتكذب بسيستم كبير أمريكا انتي كب حلو يرادين أنه مركو رحم من بيعين صومها there was no product at all صومها هذا اللي قبل الله وحبان بيعيننا ضد كم حوتو سينا وأنا وحى كان قانون كأمريكا إنه كورة مرنا لبت اللصية وزارة التجارة مرنا لبت اللصية شركات كاللصية أرنكم ماشى سكوب بالوضع باللوي هذا بقى مركو سوق بالعالم العربي ويمدوا ليت ونو يمد أي علماء الإسلام كوحي لنا قضية وقضية عصرية إلا أن آيتيجا أروح على وحي تكنولوجيا كتب تفقه كما ينقرنين لكن إلهي سبحانه وتعالى مهدي سوحة دينتو إنه مروا البا برينسيبلز بيكا هذا الشيء دينتو إنه مروا البابا برينسيبلز بيكا هذا الشيء برينسيبلز كأيكا هالليسو أيا وح لغا قياس قاتا إيادا أنا مركا لغا دقاقا إيادا أنا مركا لغا دولا dadkii ugu horeeyay ee mawduucaad ugu dhun daloole ee ka hadlay culimo fiqi ittisaadba isku darsaday wuxuu ahaa الدكتور ninka Luma Abdallah As-Sulay wuxuu leeyahay warbeecan anugu hadii saddex shadi laga helo agteed waa banaay ko qofkan meesha galaya inaan lagu khasbin productiga shirkadu ay beecinayso inuu gato laba in qiimaha productiga shirkadu ay ku beecinayso ee qiimaha suuqiga inuu farq u dhaxay saddex in si uu xulun u noqdo aan la weydiin lacag bixin aan la dhig saddexda sharti hadii la helo oo in xubinnimadii lacag aanu ku bixin in difference aanu dhaxin in terms of the price marka laga hadlay xagga qiimaha productiga shirkadu ay beecinaysay kan magaalada yaal farq hadaan u dhaxay shart shuruuda hadii la helo shuruuda hadii la helo soo sheeqo tilmaamay mas'alada iyadoo way banaantay laakiin waxaan u baahanahay shuruuda shirkadda laga helo wuxuu الدكتور سامي ابن إبراهيم السويلي ومسألة تابت يقول لها صومالها هيبل المركز قنعين سألوا دلال بانا سؤال شيء إيمان يسافقي وحيته هرت الدلال إنه واحد قطع إستاق برودكت وقطع لأن شركات مركو قالوا أنه برودكت قطع هرت يا يري هرتو حقته لبا دلال يا يري وإن اللعق بهيسد إلا أنه مركز دلال هاي nin waxaana jawaabkiisu maran yihiin hebel baan u tagay waxaan leeyahay gurigan intaasuu ku fadhiyaa mobilkan intaasuu joogaa gaarigan intaasuu joogaa anaa suuq geynaya aan marketing ba u qaabilsanay kadibna wixii aan dilaalo ayaan wax ku leeyahay oo in la yiraahdo 5% 5% hal lay siiyo laakiin dilaal baan noqonaya waxna waan bixinaya dilaal baan noqonaya productin waan gadanaya waxaan u baahanahay in meel la saaro Dr. Abdullah Al-Muslih uu raaciyay wuxuu yiri waxaan bal yaabanahay buu yiri mas'alada fiqiga xaqiiqa dhig anigu waa ma gartay buu yiri hatta aan barbarno daliil u jafjafno aan dhahno ninkan aniga aan soo qanciyo any member I convince him who qofku doona ha noqdo haddaan qanciyo inaan isaga wax ku qaato waaba la gartay laakiin ninkan aniga igu xiga ninka ku sii xiga commission inaan ku qaato madlamka shanaad ama lixaad memberka inaan wax ku qaato aniga isagana ay noo dhaxaysa masaafada weyn شرعنا مقبو عقلنا مقبو سادرتي وحا عدالة ويكينيسا أكاديميكلي إنا تلمان رأيي كالي مقابل كقبو وحي قبان علماء قاركود ما يوحن وجعاله ما يوحن وحي علماء خلاف باكي مقارب حين هذا ما يوجعاله ما يواسمصر ما يواقمار وقمار كل شيء ما يأرك سيدا ما أهانه ووكالة بأجر ما يوا مسألة قونية أتاعون سيجار إن الله نقاش وليها جعالة يضله جعالة شروط دي ولا يقانا في الفقه الإسلامي سمسرة قلاها له سؤال شهادة ودقي الدكتور سامي إبراهيم بن سويلم
ayaa meesha muuqata inaanay shaqo ku lahayn qoladii yidhi noocan ma waa qimaarka yidhi iyo qoladaa iyo ribada yidhin waan u iman doonaa habkay ku saleeyeen saa darteed masalada markay meesha timi doodu ay timid majaamicdii fiqiga ahaabaa u fariistay ma aha nin khudba la soo istaagay sideedoo kale 4 ruux meel ku soo xirtay maaha majmaca fiqiga السوداني ومجمع الفقه السوداني هدي لله فتوى السعودي ووهابي هدي لها مجمع الفقه السوداني ayaa wuxuu soo saaray inay xaraam tahay nooca kan ee beeca ee dadku la wareegaya labo majmaca fiqiga daar al-iftaa ee urdun hadii la leeyahay sacuudi waa wahabi iyaga soo saaro yiri waa xaraam al-amaana al-misriya ee daar al-iftaa kow intay ku fududaadeen bay wixii ay bannaan tahay sanooyin kadibna way ka laabteen wixii waa xaraam inta waxaan hena majaamic waxa kale ku soo gabagabeynayna majmac fiqiga al-lajna daa'ima ee sacuudi arabiya مجمع الفقه اللجنة الدائمة يقول لها واحد شيء واسكمت لكن بالتفصيل حتى أنا قده كوحي لي نيكا كان لعقت أو بحينيو horta waxaan ognahay qof kasta xataa waxaan isku dayay inaan dul istaago ilaa meesha waa 34 shirkadood baan arkay inaan dul istaago marketing systemka iyo qolo walba marka dad meel inta la isugu keeno motivation inaan dhageyso waxa ugu hore laga hadlo arqaam lacag baa laga hadlaa ko inta badhelaysa qofku meesha uu doono isaga laga dhaco laakiin waxa laga hadlaa lacag baa laga hadlaa laakiin dadku waxay leeyihiin ma sha Allah waxaan beecinayna way fiican tahay niyada aad u fiican laakiin waxa kale la beeciya badan waxay leeyihiin ninka kan markuu meesha galo horta cumulada uu qaado wuxuu u socdaa cumulada commission ku u socdaa lacagtan uu helay u socdaa is not aiming at the product uma socdo waxa la beecinay wuxuu u socdaa commission ku qaadanay mar haday saa tahay lacag in lacag lagu qaatay waa ribayda laba nooc riba ka soo baxda ko riba al-fadl riba lagu magacaabo anu waxaan bixiyay in yar $700 4,000 koron 5,000 koron laakiin waxaan u socdaa lacagta lacag ka badan ba u socdaa labo riba al-fadl way to riba bimaana nasiyana way to lacagta markiiba lii bedeli maayo dib danba laga siin doonaa waa riba nasiya labada nooc ribada meesha ka muuqata bayda laba qodobka labaad ay fiqhu culimadu ay sheegeen waxa uu yahay wixii yiraahdaan qarar baa ku jira qararku waa shay aadan ogeyn wuxuu ku dhamaan doono shay walba ee qarsoon dadkuna waxay isku khaldaan jahalada iyo qararka isku khaldaan jahalada bay'aan u guntamaa fiqihan jahalada iyo qararka isku khaldaan qararku waa shay lagu kadsoomay aadan ogeyn maxay waan ognahay qaliyaha lacagta qaatay inay yihiin systemku markuu qolaba marketing labga u socdo kuwa u sareeyo waxa kuwa kale way khasaaraan taariikhiin waan ognahay oo marka khasaaradana markay timaado baa la hadlaa kii Masar u orday ee jooga xabsiga ku jira kuwii Saudi Arabia hor booday ma aragtay lagu magacaabi jiray hawshan ordi jiray iyagu xabsi bay ku jiraan magac kale ay samaystaan oo faaf bay la baxeen way soo wareejiyeen kuwa kale kulli xabsi bay ku wada jiraan maxay la dadka lacagahooda marka afka loo dhigtay kadib oo ay waxay isku bilaabeen in magac kale marka la soo galaan for life forever waxa dadku ku magacaabo tirooday ka batay ama tirooday ka batay qoliyaha soo dhan ma ogid waxa kan number 2 aniga waxa la yiraahdaa soo qanci ma ogid dadkii inaan heli doono aan heli doono وانا صوبت كنت بيع المنابذه يسو طور ان كوسو طور بيع الملامس ان تابته وحيسي بيع الحصاء قرور عن طوره ماشي دون هكدعو بيوعدا بيع حبل الحبله هشر وحي حنبارسنتا وحي سيدس وحي كيري دونت بيوعدا صدر محل لا حرم وحلا بسبب الغرر لا حرم اذا الغرر كينا باشو كم نقطه قالوا كسدحاد وحي هذا تدليس باكو جرا وانا ماشي ugu daran oo khatarsan mowduucan intan baarin oo qofka su'aal baa weydiinaysa meel kale ka dhacaya magac baad weydiinaysa magac kale oo sameynaya walaal Umar Khadaab radiyallahu anhu qala intay iibida markay wixii raadeen wardadka kan waxa laga qaaday jizyan la dhihi wuxuu yiri ma waxa diidaysan niman ahlu kitaab in jizyan laga qaadaha samuha ma shiitum idinku magac doontaan u yeelay laakiin fa innaha jizya ma dhaafsiisna walaal magac ka duu sameey it doesn't matter terminology wuxuu yahay la mushahata fi al-istilah anna kan geed baan waqana anna waxa u taqaana muxuu ahaa nal mushkilad male laakiin waxa muhiim حقيقة دي شيء إنه سماش عنه كبه ولذلك استمساركم وعلي يا بني دلال سئو دلال النقضة إنه العق ممبرشيب أبحيو يا بني كو وانا ماشي أبو خطر سوي وحبان تسويقين يا سوق جيني وحانا الربا دلال نمدي إنا وحقوقاته شرعي وبهانت إلا شرعي وبهانت وفي الشرع الإسلام لما يقان لكن دلال كو حال أوجي wixii aan aniga suuq geeyo wixii ka soo baxay wax ku leedahay la gartay laakiin dalaal baan noqonaya
waxaana ku khasbanahay kow inaan wax gato laba waxaan kale ku khasbanahay inaan si aan xubin u noqdo waxaan u baahanahay in aan lacag bixiyo taa daliil bay u baahantay masalada kale waxaa ka muuqda akli amwaal annaasi bilbaatil xoolaha dadka oo la dardarayo si baatila oo la leeyahay xoolaha dadka afkaha loo dhigta ay tahay waxayna ka mid waxyaaba u khatarsan waxay leeyihin waa hibo ama bonus sida loo yaqaan hibadu yaa yidhi hibo walba oo magaca hibada wadata ama bonus walba waa sax yaa yidhi bonusku noocyuu noqdaa hibadu noocyay noqotaa hibada iyo hadiyada waxaa jira hibo xaaraamaa jirta maalan waxbaan kugu leeyahay qardi ama waxa adaa waxa igu leh ina adaa waxa igu leh aan wax kuu keeno oo ku siiyo hadiye kuu keeno waa mamnuuc waliyaalika wuxuu tilmaamay cabdullah ibn salaam markuu lahaa burda wuxuu niyo waxaa joogtaa dhul ribadu ay ku badantay dadku hadday kuu soo hadiyeyaan buu yidhi ximli oo timira ama wuxuun hadiye lagu keeno ha ka qaadani leesh maxaa waxaa joogtaa bur dhul ribada ay ku badantaa waa intaasoo riba ay kugu noqotaa warjooji ninkii saxaabiga nabiga intuu yidhi yaa rasuul allah kana anaa iskale waa liisoo hadiyey kana idinka iskale dadkan usoo qaaday wuxuu nabiga sana kaala buu yidhi awalaa jalasa fii bayti abika ummik guriga aabbaha hooyada maxaa u fariisan wey magaca islaamka intaad ku keentay adoo baara saaba magaca intaad kusoo qaadatay ba waxaa leeda waxaa lii xalilay haddaba bonus walbaba iyo hibo walbaba inay sax tahay calaa su-aal bay u baahan tahay su-aasha marka meesha taal waxay tahay kow ee dadka la weydiinayo waa midda ugu horraysa horta markaad soo gelaysa wax ma lagaa qaataa haddii la dhihi lahaa maya waxaa loola jeedaa waa madlam maya loolama jeedo membership loolama jeedo tamthiil tijaari baa loola jeedaa intuu horta in meel la saaray u baahanta haddii meel la saarana horta waxaan yaa baneeyey ugu horreyn labo ma ku khasban tahay productiga inaad gadatid haddaad ku khasban tahay idan caam su-aal kale weyse misaar wax gadana intee lagu arkay saddex ma hubtaa camaliyadan aad ku jirtid ama hawshan aad gudanaysid inay 100% ku dhammaan doonto meesha adigu aad filaysid intaa marka la soo ururiya kadib markii alcaalam islaam markuu saa uga qayliyey bay sacuudi arabiya waxay soo saartay go-aan dhammaan dadka ka shaqeynaya in xabsi la dhigo wasaarat altijaara wasinaaca waxay memo u wada dirtay dhammaan chamber of commerce in saudi arabia meel walba ay ku jirto waxaa la horta joojiye labo canada waxay soo saaray qofkii waxaan faraha la galay 5 sano xarig inuu yahay waxayna raaciyeen waxay dhaheen 3 shardi oo aan la helo arag fiqiga iyaba nooga dhow maxay leeyihin kow qofka kan waa in wax laga qaaday markuu meesha geliy waa in wax laga qaaday labo waxa laga qaaday waxa meesha yabaanay isku dhigmaan saddex haddii uu ka bixi uu rabo inuu ka baxo waqtiga uu doono xoolihiisa loo celiyo faransa qaanuunkeedii 95 iyo 96 fasalka quseeya shabakaat albayc shabaki waxay soo saareen sida soo socota waxay yiraahdeen qofka kan waa inaan membershipka ama xubin markuu noqdo wax laga qaaday haddii wax uu la baxana waa in marka loo socdo 10% ka badan waa in laga goosan hal sanana waa in loo qabto inaga keen uu ka yiri inta kelmadda kale meesha tilmaam ilaa waxay tahay inta aan maqlad kelmadda aan waday shirkad magaceeda ma sheegin iyadoo 34 shirkadood jeebka ay ugu jiraan magacooda aan tixi karo maxaa yeelay qofka marka la weydiiyo wuxuu leeyahay annaga ulama jeedine da shirkadeena u baa si gaar ah loo weerarayaa dad aan weerar ku nahay malaha masjidkuna wuxuu meeshan u joogaa inuu dadka islaaxiyo aad bayna u qurux badan tahay in la helo intaasoo milyan oo Soomaali maanta milyaneero ah oo wax haysta oo xoolo haysta oo kor leh noo soo fiiri aad baan ugu farxsanaan lahay shaqo in la helo waxaan raadinayno ummadda ka caawin baan ku haynaa 24 saac dhaqaaqa laakiin waxaan u dhaqaaqaynaa wax xalaal inay noqdaan wey وبإذن الله سبحانه فستذكرون ما أقول لكم هذا كان إذن الله إن شاء الله أنت وذجون وأركي دونتان شركات كان مالها يكون ضمبيان حالي فرانسيس نيو كارين تيث أنا ونوع سبت لكن عالم العربي كسو قبتي محالي واحد جرب برسنتيج كالشباب كان دنيارات مركز ربيع العربي ودعي الشقادة أنا هيسين عدد كل ما قياسي كرو علوم أنت أساسي والعلمية وذات ما أنت لقي يابو تدويني قلدناتي وحنكو شيء لكن وحنكو فرح سنة waxaan meesha ka sheegay jeebkayga inaan ka keen oo culimo iyo meel aan ula laabtay tawaamid wadaadka ku banaynaya ee kuleh way banaan tahay bari hadduu ka laabto dambigeeda la iskale teeda kalena waxa mushkiladan haysataa waxay tahay in dabcina noo ah su'aal marka qofka la weydiinayo kan buu weydiinay laakiin jawaabtu uu rabo qalbiga ku jirta already sheekha tiaqu isagu uu rabo waafaqa umba al-batal al-kabir ninka khatarta ah kan kalena waa jaahil waxba aan oqon muhiim maaha laakiin ogow inaan aniga wax ka xaaraantinimaya dan igu jirtay malaha
بل وحي كم قوله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ورها كفوا ظالين حلال حرام لسوا بودنا ومضى القمع عريري نلاش لكن أوردي وحان هنا ضد فتوى ذا قريه هلقته ضد فتوى ذا قواري هلوقات الربا أوردي وحان هنا هذا فتوى ذا هدي ماشي أولا تكتد وحاو نوح كوين فتوى ذا وحوضها يا وحكا وحوضها يا مركا وحان كل شيء يا مركا موضوع إنا فهمتاوي وموضوع ديني بل وحان إذن كلات تالينيا ديب تنبا إنا تقول الله بتان مسادرته وحي إنجليش بيكو قريهين أو صوما وحي كو قرين عربي بيكو قريهين انت أقول بدل ولي مسادرته كي قادنا يسان ولي تكوى إنجليش كديغا محاي حقيقة كو صباحيس نينكا قال كامركو ماركتينج سميني فيديو مركا داوته إلا وحو كبقى مالها وحي إليني مركا مالها وحو إسكا إلا إلينا قانونك ودنك وجوغ إنو سنكون عنو كلي سادرته وحو كوكو هالله أبا كوكو شيء everything في حين نينكا مسلم مركا ويدسو لي مقعكا ولا بحاي ضلت إيقو جرتاي محاي تاي بقول كنا كسوق جلس إنا كاعلي إنا كفر حاوي وإلا حاسدين من نقولسها لكن سؤال شعراء إلى الصوت دونتي وهذا جوابه اللهم يا الله تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا وقراءتنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وعنتنا عليه برحمتك أرحم الراحمين برحمتك أرحم الراحمين إن ولا لها الدويل وكجرا اسبتالك إلى